بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو ودكتور سهرة محمد عبدي. marka laga hadlaayo tarbiyada ama barbaarinta caruurta waxay yeelan kartaa dhinacyo kala duwan waana mowduuc muhiim ah oo qof kasta inuu wax ka fahamsan yahay la rabo si bulshadeenu ay u noqoto ama u soo saarto jiil asaga wax istara dadkiisana wax tara laakiin caqabadaha qaar kamid ah tarbiyada ama waalidiinta soo food saara waxa kamid ah in caruurtoodu ayaga ay si la rabaan ilmihiina si kale ay rabaan oo keeni karta hadhow isfaham daro waalidkii iyo ilmihii dhaxmarta taasoo ay ka dhalan karto in waalidkii uu ku madax adeego wixii uu rabo caruurtiina ay sameyn waayaan wixii waalidkiisa uu rabo si marka loo xalliyo arintaasi waxa muhiim ah marka koowaad waalidka oo ah isha tarbiyada iyo barbaarinta caruurta inay wax ka fahamsan yihiin ahwaasha iyo maraaxisha caruurtoodu ay marayaan tarbiyada caruurta ama marka laga soo hadlo waxyaabaha waalidku ilmihiisa uu ka rabo inuu dadka ugu fiicnaado ugu aqoon bato ugu aqli bato ugu sareeyo ayuu waalid kasta la jecel yahay laakiin waxa laga rabaa waalidka inuu fiiriyo hibooyinka iyo dabeecooyinka ilmihiisu ay leeyihiin kadibna uu ku dabaqo waxa uu la jecel yahay ma la socon karaan mise lama socon karaan marka ay saas dhacdo waxa dhacaysa in waalidiinta iyo caruurtoodii isfahmaan hadhowna ay meel fiican isla gaaraan waxaa jirto qiso qaab tusaale ahaan loo soo qaato waalidiintana tusaale loo siiyo oo khiyaali ah laakiin muujinaysa sida waalidka markasta uusan ugu qanacsanayn xaaladda markaas ilmihiisu ay taagan yihiin ama aqoonta markaas uu leeyahay ama hibooyinka markaas uu leeyahay sida waalidka ilmihiisu uu ugu qasbo waxaynan ama awoodi karin ama aysan gaari karin ama aysan rabin qisadan waxay leedahay waxaa jiro dhismo weyn oo ka kooban 6 dabaq waata qiso tusaale loo soo qaato 6da dabaq marka waxa ku jira qofkii uu tagaya caruurtii ama awlaadii uu rabo tilmaamaha ay rabaan ayuu ka soo qaadanaya tusaale ahaan shuruucda marka meesha markii la galay waxa kamid ah qofka markuu iridda ka galo oo uu dabaqa koowaad maro inuusan dib u soo noqonin oo hore la u sii baxo iridda anduu ka galo irid kale gadaal ayuu hore uga sii baxaya yani dib u soo noqosho ma jirto shuruucda koowaad saas waay haddii dabaqi aad dhaafto oo aad ka weyso tilmaamihii aad raadinayso kan kale aad tagto xataa asagana dib uguma soo noqon kartid oo haddaad dhaafto waa sii dhaafaysaa leh nin oday ayaa marka soo baxay wuxuu yiri bal dhismaha weyn tag tilmaamaha caruurta aad rabtana ka soo qaad caruurta aad raadinayso tilmaamaha ay leeyihiin caruur leh ka soo qaado uu soo baxay iridii markuu soo galay warqad ayaa ku dhagan meesha darbiga ah oo lagu leeyahay soo dhawow dabaqa koowaad waxa ku qoran warqad ah soo dhawow caruurta halkan ku jirta waa ilmo aadaab leh salaadan ku dadaala wuxuu yiri ama tagtaa dabaqii labaad oo ilmo ka sii fiican aad heshaa haddana wuxuu yimid dabaqii labaad wuxuu ku arkay caruurta halkan ku jirta waa ilmo aadaab leh salaadan way ku dadaalaan wax akhriskana way jecel yihiin wuxuu yiri ama ilmo fiican oo ka sii fiican asii raadisaa wuxuu tagay dabaqii saddexaad markaas waxa ku qoran ilmaha meeshan ku jira waa ilmo aadaab leh oo akhriska ku dadaala salaadana ku dadaala saaxiibo fiicanna way leeyihiin wuxuu yiri ama dabaqa afaraad ilmo ka sii fiican aad ka heshaa haddana wuxuu tagay dabaqii afaraad waxa ku qoran ilmaha halkan ku jira waxay leeyihiin afartii tilmaamood ee hore loo soo sheegay waxaana oo la jirta waa ilmo baari u ah waalidiintooda iyo dadkooda wuxuu yiri ama dabaqa shanaad uu ka sii fiican yahay oo dabaqa shanaad aad tagtaa haddana wuxuu yimid dabaqii shanaad wuxuu ku arkay ilmaha halkan jooga waa ilmo aadaab leh salaada ay ku dadaalaan wax akhriska ay jecel yihiin saaxiibo fiican way leeyihiin waalidiintoodana baari ayay u yihiin waxaana oo la sii jirto oo tilmaanta saddexaad waa ilmo aad iyo aad u caqli badan oo caqligoodii waa meel sareysa ay maraan dadka caqligoodii waa ka sareeya wuxuu yiri dabaqan shanaad ama iskaga ekaysataa tilmaamo fiican waa heshay haddana wuxuu yiri bal ilmihii kuwa ka sii fiican inaa hesho kan lixaad tag kii lixaad markuu yimid ayaa wuxuu ku arkay warqad sheegaysa soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay inaad soo booqatay waxa tahay qofkii 3 kunaad ee soo booqda ayaa tahay oo annaka soo mara oo ku soo qanci waaya 5tii dabaq ee la soo dhaafay sida darteed qaybtan waxay cadeen u tahay in aysan jirin meel ama xadidi karta waalidiinta waxa ay caruurtoodii ka rabaan ama ay ka doonayaan
aad baad u mahadsantahay adigoo mahadsan oo gadaal aan fiirin hore u sii baxa iridii dambe ayuu gadaal uga baxay tusaale waxay tahay marka waalidka marka caruurtiisa uu yaqaano hibada ay leeyihiin qof walba Ilaahay wuxuu siiyay hibooyin gaar ah awoodo gaar ah qof aad dhici karta inuu cilmiga ku fiican yahay qof aad dhici karta inuu shaqada iyo camalka ku fiican yahay qof aad dhici karta in waxyaabaha maskaxda laga shaqeysiyo uu ku fiican yahay qofna gacmaha sida looga shaqeysiyo ayuu ku fiican yahay marka waalid kasta waxa laga rabaa in marka koowaad uu ku qanco ku jeclaado ku koriyo ilmihiisa sida ay yihiin kadibna uu isku dayo inuu ogaado hibooyinka iyo awoodaha caruurtiisu ay leeyihiin markii saddexaadna uu hibooyinka koriyo oo barbaariyo oo asaga sida uu doonayo kaliya uusan ilmihii ku qasbin hadaynan ahayn ama aysan rabin aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum